ma bannaana waa baatil wuxuu ka soo horjeedaa diinta islaamka. halkan waxaan ka soo jeedinayaa erey ku saabsan heshiiska lala galay yuhuudda haysata dhulka Filistiin. heshiiskaas oo dhex maray Somaliland oo dhinaca iyo yuhuudda xoogga ku haysata dhulka Filistiin, dhulka muslimiinta. horta heshiiska magacii la doonaba ha loo bixiyo, ama ha loo bixiyo i'tiraaf, ama ha loo bixiyo mucaamalo, ama ha loo bixiyo aqoonsi, ama ha loo bixiyo xiriir diblomaasiyadeed. magacii la doonayaba ha loogu yeedho. waxaa muhiima waa maxay nuxurkiisu, xaqiiqadiisu waa maxay, run ahaantiisu waa maxay, maxaa dhex maray labada dhinac. marka la soo koobo ee nuxurkiisa la eego heshiiskaasi xaqiiqadiisu waxa weeye hiil loo hiilinayo gaalada yuhuudda ah ee xoogga ku haysata dhulka muslimiinta ee Filistiin. waa hiil iyo garab istaag loo muujinayo nimanka iyaga ah. sidaa darteed heshiiskaasi ma bannaana, waa baatil wuxuu ka soo horjeedaa diinta islaamka. yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaaraa awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqawma alظaalimiin. ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay aayadda waxa uu mu'miniinta ka xarimayaa, ka mamnuucaya oo u diidaya, ka reebaya inay yuhuudda iyo nasaarada u hiiliyaan oo ay garab istaagaan oo ay ka dhigtaan gacal iyo xigaal. iyagaa isu ah hiil buu ilaahay yidhi, bacduhum awliyaau bacd. sidoo kale ilaahay wuxuu sheegay ciddii iyaga u hiilisa ee awliyaa ka dhigata in ay ciddaas iyaga ka mid noqonayso, oo waxa weeye wuu ku gaaloobaya weeye. oo iyagu dee yuhuudiya nasaara waa gaalo, markaa qofka ka mid noqdaana ama qofka muslimka ee garab siiya waa qof iyaga ka mid noqday, markaa gaal iyaga la mida ayuu noqonaya. aayaddaasi sidaasay u caddahay, warkeedu saas u cad yahay. heshiiskaas si kasta oo yacni loo soo dhoobo, loo soo ururiyo cid bannaynaysa, xalaalaynaysa, qurxinaysa, wanaag iyo horumar ku tilmaamaysa, heshiiskaasi kuma xalaaloobayo, kuma bannaanaanayo. ilaahay baaba xaaraantinimeeyey. war qolyihiina muxuu ahay heshiiska horkacaya ee wada, waxaad haysaan oo bartamaha u taagantihiin tubtii halaagga ayaad bartamaha u taagantihiin. soo noqda, ilaahay u soo noqda. mulkigan iyo awooddan maanta aad sheeganaysaan way soo dhammaanaysaa. qof kastaaba waa dhimanaya, keligii baana la xisaabinaya. waxii uu kasbaday baa muxuu ahay lagu abaalgudaya. war baqdinta aad ku baqdin gelinaysaan ciqaabta adduunyo waxba ma aha. maxaad samayn kartaa aanaan ahayn in aad qofkii xaqa sheega ee runta idiin sheega inaad dishaan, ama aad xidhaan, ama aad mastaafirisaan. intaa waxaan ahayn oo aad samayn lahaydeen maxay tahay? idinku waxaad ku fikeraysaan oo aad dadka u weyneynaysaan oo ku baqdin gelinaysaan jeelasha aad maamushaane. xisaabta ma ku darsateen jeelasha jahannama? jeelka jahannama ma ku fikerteen? ma isweydiiseen? war wallaahi anigu beri baan idinka ahay waxaan aad samayseen iyo waxaad samayn doontaan arrinkaa ku saabsan ee ah diinta islaamka ka soo horjeeda. beri baan idinka ahay, xaqana waan idiin sheegayaa, wax kastaba ha ka qadhaadhaadee. marka aad ereygaygan dhegaysataan, haddii aad ku fakertaan ama aad istidhaahdaan oo aad shirtaan oo aad tidhaahdaan ninkaa ha la xidho, ha la soo qabto, ilaahay baa igaga kiin filan, ilaahay baan idinku daynayaa.